quruxda adduunyada waxa ka qurux badan quruxda aakhiro iyo karaamada ilaahayna hubiye walaqad karamna bani aadama karaamada ugu weyn oo ilaahayna si waxa weeyaan inuu ka dhigay dad muuminiina oo ilaahay qalbigooda geliyay diinta islaamka iyo yaqiinta taasuna waa intii laga hadlayay muddadii koobnayd 4 maalmood ahayd madaxweyne adigoo runtii aanu kala tashanay ay codsadeen in maanta mu'tamaradii laga qaban jiray Yurub ay ku bilaabeen Soomaaliland geey Soomaaliya mu'tamar nasab u yeelanay guud ahaan Hargeysa iyo Jaararka haday takilka shanaad dowlad deegaanka Soomaalida dad doora ka yimi oo dhageysanayay oo madax dhaqameed ma leh ganacsato leh culumana leh waxa u yimaadeen runtii fursada qaaliga ah ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay in culimadu ay wacdido nasiib wanaag ah in intii lagu jiray mu'tamarka si nabadgelyo ugu socday wax buuqay wax si jira aan u dhicin hoolkii weynaa ee ku qaban jirnay shirarka kongareesyada xasaabta ayaa sidii wasiir Saciid Sulbaxale yiri wuxuu waa markii aan u horeysay kulan bila dambi aan hoolka ku galo marka farxad bay ahayd runtii hoolku buuxay rag dumar waa islaaka hadaan dumarku naga badnay dibadda la fadhiyay roobka xalad dibadda ku helay anagoo ducadii sugayna iyo khatinkii culimada sugayna dibadda roob ku helay baahi iyo muxuu ahay gogashay loo dhigay bay ay ka gabood ka dhigteen xaga maartay muxuu ahay dabayshii iyo roobkii waxaas waxay kalgacayl loo hayo diinta madaxweyne hadalka badin maayo insha Allah كلمة عبد الرزاق وإسلام وفته هجامينية الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي الصوفي الشيخ علي